maogtahay inay kuwani yihiin hooyooyinka ugu xun caalamka xayawaanada. hor intaynaan bilaabin aylobna like saarta muuqaalka kana mid noqota asxaabta kanaalka si aad u hesho xogo iyo muuqaalo xiiso leh. hamsterku wuxuu u muuqdaa xayawaan yar oo degan, balse wuxuu leeyahay dabeecad dad badan ka yaabisa. haddii hooyadu dareento walbahaar xoogan, buuq badan amba cunto yari, waxay mararka qaar cuni kartaa qaar ka mid a dhallaankeeda. tani ma ahan inay nacab tahay ubadkeeda, balse waa hab dabiiciya oo ay ku xaqiijiso in carruurta hadhay ay helaan cunno iyo daryeel ku filan. sidaas ayayna u kordhisaa fursadda badbaadada kuwa ugu xooga badan. Chickilidy. kalluunkan loo yaqaana Chickilidy waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay waalid aad u ilaaliyo ubadkiisa. hooyadu waxay dhallaankeeda ku qarisaa gudaha afkeeda markay dareento khatar si ugaadhsadayaashu aysan uga cunin. si kastaba ha ahaatee, haddii ay muddo dheer gaajooto amba cadaadis badan soo wajaho, waxaa dhacda mararka qaar inay cunto qaar ka mid a dhallaankeeda. inkastoo ay tani u muuqato mid naxariis darro ah, haddana waa hab ay ku badbaadiso nafteeda iyo inta hadha ubadkeeda. baanduhu badanaa waxay dhashaa 2 dhallaana, laakiin inta badan waxay daryeeshaa hal oo keliya. sababtuna waa in caanaha iyo tamarta ay haysato aysan ku filnayn 2 dhallaanba. sidaa darteed waxay doorataa kan u muuqda inuu xoog badan yahay ugana caafimaad badan yahay, halka kan kalena badanaa uu waayo daryeelkii hooyada. tanina waxay u muuqan kartaa go'aan adag, balse baanduhu waxay sidaas ku kordhisaa fursadda ugu yaraan 1 dhallaan si uu si guul ugu noolaado misena ugu hana qaado. haddaba daawade, adigu su'aal haddii aan ku weydiiyo, midka ayaa xog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad filim noo saarto youtube-ka iyo facebookka profilka saaranna aad subscribe dhahdo.